marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Caabudwaaq sida sharafta noo soo dhaweyseen madax iyo shacabba waxaan leeyahay haddii qof Soomaaliyeed oo halkan jooga ama dalka dibadiisa jooga oo halkan naga daawanayo uu shaki uga jiro in dawladnimada Soomaaliyeed ay hana qaaday tusaalihii maanta ayaa hortiina taagan yahay haddaad walwal ka qabteen inay Soomaaliya hore u dhaqaaqday kaalay Caabudwaaq soo daawada haddii aad rajaba xumo qabteen eega indhaha wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee Caabudwaaq iyo jacaylka ay dawladnimada u qabaan waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo intaas ka sokow waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado inaad noo ogolaataan aniga iyo wafdigayga anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda inaan idinla dhisno galmudug nabad ah inaan idinla dhisno galmudug laga daaweeyey khilaafkii ragaadiyey inaan idinla dhisno galmudug wada jirta oo mid ah inaan idinla dhisno galmudug leh maamul loo dhan yahay oo aan sadbursi lahayn iyo inaan idinla dhisno galmudug xiriir wanaagsan la leh dawladda federaalka